sagaalka bishii Sebteembar dalka Soomaaliya waxa uu dood iyo difaac la hortagi doonaa maxkamadda adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyay ICJ oo ku taala dalka Holland, iyadoo lagu wado in ay dib ugu bilaabato dhageysiga kiiska badda Soomaaliya oo ay muranka gelisay dowladda Kenya. Kenya waxa ay war ka soo saartay kiiska badda ee kala dhexeeya Soomaaliya, iyadoo codsatay in dhageysiga kiiska badda laga saaro garsoore Cabdiqaawi Axmed Yuusuf oo ah madaxweynaha maxkamadda ICJ isla markaana ah nin Soomaali ah. Hay-adda lacagta bixisay ee magaceeda loo soo gaabiyo PAF oo sheegtay in ay u doodo arrimaha Geeska iyo Bariga Afrika ayna madax ka yihiin dad Kenyaan ah ayaa xusay in Kenya ay dooneyso in garsoore Cabdiqaawi laga reebo dhageysiga kiiska badda ee kala dhexeeya Soomaaliya. Sidoo kale hay-adda PAF oo uu gudoomiye ka yahay David Matisanga isla markaana u dhashay dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in garsoore Cabdiqaawi uusan si dhexdhexaad ah u gali karin kiiska badda ee labada dal ayna niyadiisu la jirto buu yiri Soomaaliya. Sidoo kale dhowr jeer oo uu fagaara ka hadlay ayaa waxa uu sheegay garsoore Cabdiqaawi inuu jecel yahay Soomaaliya. Ugu dambeyn, gudoomiye David Matisanga ayaa dowladda Kenya ugu baaqay in aysan ka qaybgelin dhageysiga kiiska badda ee horyaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. sagaalka bishii Sebteembar ee toddobaadkan soo aadan ku beegan ayaa la filayaa in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ si rasmi ah ay uga bilaabato dhageysiga kiiska badda Soomaaliya oo ay muran ka gelisay dowladda Kenya. Muddo dhowr bil ah oo ay sugayeen shacabka Soomaaliyeed waxa ka soo yeeri kara kiiska badda oo ay muran ka gelisay dowladda Kenya ayaa haatan waxay ka dhursugayaan natiijada ka soo bixi karta markii ay dhammaato doodaha la xiriira dacwadda kiiska badda oo ay kal hore gudbisay dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana dhowr jeer oo horey dowladda federaalka ay rajo wanaagsan ka muujisay natiijada ka soo bixi karta garsoorka dacwadda hortaalla ee badda la xiriirta. Haddaba daawade, adigu maxay kula tahay? Maxaase ka filanaysaa?